dadka ku nool magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa bilaabay qaarkood inay ka baxaan magaaladaasi kadib weerarkii Ruushka uu ku qaaday waddanka Ukraine. Qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka iskaga baxaya magaalada caasimadda ee Kiev. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Maxamed Cabdi Guutaale oo ka mid ah ardayda ka qaxaysa magaalada Kiev ee Ukraine. ridwaan adiga mudan sababta ugu baxayno waxay tahay cabsi waxaa jirto ah in maadaama ay caasimadda dalka tahay Kiev inay taarka tahay oo haduu tigi xilliyo dambe laga yaabo in markaasi ay xiranto laga bixi waayo marka sababta ugu hadda looga baxaya waxay tahay caasimadda inay taarka noqon karto isla markaasna haduu tigi la waayo qaab looga baxo. waa gartay dadka ku nool Kiev hadda ma wax rasaas ama wax hubah ayay maqleen oo magaalada ku soo dhacay mise waxay ka cabsi qabaan in magaalada ugu dambeyn la isugu iman doono. runtii saakay markii aan soo kacnay waa jirin adiga waxyaabaha badneen oo laba mid camal ah maqalnay laakiin kadib maysan jirin wax markaasi rasaas ama dhawq ah maqalnay markii kadib sida ay dawladda Ruushka sheegtana waxay meelaha ay target gareeyaan waa xarumaha dawladda ma ahan shacabka marka labadaas dhawq oo saaka subax hore markii aan soo kacnay maqalna ma ahan kadib wax kale ma maqlin. waa gartay marka walwal baad sheegtay inay jiraan adna waxaad ka mid tahay dadka magaaladii raba inay ka baxaan xagee inta badan u socdaan dadka ka qaxaya magaalada Kiev. runtii dadka inta badan waxay u socdaan dhankaas iyo Lviv oo ayada ah maxallaha iyo dhankan waxay xigtaa iyo Poland caasimadda Poland xigto dalka Poland marka dadka badankood halkaas ay aadeen marka hadda meesha aniga aan rabaa inaan u baxno halkaas way. yaa kula socda adiga marka laga hadlayo Soomaalida maqaar kale ardayd la socdaan. runtii aad iyo aad wala badan yahay arday badan iyo dad markaas deegaan meesha ku ahay iyo kuwa qaxootiga joogay waa aad u badan dadka markaas daraba inay baxaan ka baxaan. waa gartay marka laga hadlayo guud ahaan shacabka dalka magaalada Kiev waa maxay dareenkooda maxay dareemayaan dadku hadda wixii ka dambeeyay duulaanka Ruushka. dadka marka ay fiirisid waa murugaysan yihiin intooda badanna wadanka way ka carareen caasimadda way ka baxeen qaarna waxay sameeyeen way joogaan laakiin waxay sameeyeen in markaas ay supermarketyada imaadada ka soo adeegtaan ilaa ay adiga muddo waxay isku celceli lahaayeen ay soo adeegtaan ay guryahooda iska joogaan oo taladii madaxweynaha ay qaataan oo ahayd in dadka guryahooda iska joogaan ka baxeen oo ilaa haddana way qulqulayaan.